صلاة الظهر waxay imanaysaa xilliga qofku shaqada adduunka uu kala rogayo mashquulsan yahay صلاة العصر waxay imanaysaa xilliga qofku uu nasanayo صلاة المغرب waxay imanaysaa xilliga dadku ay aqalada ku soo hoydaan ay daalayeen marka ay fadhiisteen baa la oranayaa hayya ala salah hayya ala al falah صلاة عشاءنا waxay ku soo beegmaysaa xilliga aad leedahay xaaskaygii baan la kaliyoobaya صلاة فجرنا waxay ku soo beegmaysaa xilliga shaydaanku uu ku leeyahay habeenku waa dheer yahay iska seex xilliyada salaada lagu soo beegay eeg marka ilaahay cibaadadiisa si laynoo baro ayaa lagu leeyahay maalintiina 5 salaadood waliba 5 salaadoo xilliga ku soo hagaagaysa 5 waqti salaada duhur waxay imanaysaa xilliga qofku shaqada adduunka uu kala rogayo mashquulsan yahay صلاة العصر waxay imanaysaa xilliga qofku uu nasanayo صلاة المغرب waxay imanaysaa xilliga dadku ay aqalada ku soo hoydaan ay daalayeen marka ay fadhiisteen baa la oranayaa hayya ala salah hayya ala al falah صلاة عشاءنا waxay ku soo beegmaysaa xilliga aad leedahay xaaskaygii baan la kaliyoobaya صلاة فجرنا waxay ku soo beegmaysaa xilliga shaydaanku uu ku leeyahay habeenku waa dheer yahay iska seex xilliyada salaada lagu soo beegay eeg oday geel badan lahaa ayaa wiilkiisiiba markaa ilaahay u soo hadayo salaadii buu bilaabay markaasuu wuxuu arkay mar walba ninkuu weyse qaadanayo tukanayo odaygana geela leex jeclaa ka hayso aad buu u dhaqay geela markaasuu war geela aabba geela salaada maad ka daysadaa buu markaasuu dayni waaye ki yaraa haddaad ka daynayna ta maqribun maad ka daynsidaa buu ana waa xilliga maqasha iyo geela markaa nirgaha la kala meeraco weeyaan ninkii garan baa garanaya haddaanad ka daynayna buu yidhi ta maqribna nuunuuda dambe un maad ka daynsidaa nuunuud waa dikriga dambe adkaarta masaa'iga ilo qofka muslimku adkaar buu leeyahay gaafil maaha xilliyada salaadu ay ku soo beegmayso oo dhan waa xilliyo la doonayo qofka bini aadamku inuu raaxadiisa ka tago xaajadiisa uu ka tago u eega ilaahay amarkiisa